kulan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka iyo waliba wasaaradda arrimaha gudaha iyo mas'uuliyiin kale aad u tiro badan ayaa lagu qabtay xarunta gobolka Nugaal waxaana kulankaasi looga gol lahaa sidii loo sameyn lahaa sanduuq dhaqaale ururina kaas oo markay xaaladda adag ay yimaadaan wax looga qabto. kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka gobolka Nugaal ayaa waxa markii ugu horeysay goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Nugaal Mudane Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo isagu sheegay sanduuqani inuu yahay mid dhaqaalaha lagu ururinayo isla markaana loo baahan yahay in meel badan laga ilaaliyo. sanduuqaasna laga ilaaliyo oo guddigu ay soo saaraan sanduuqa lambarkiisa cid kastoo wax sadaqaysanaysa iyo cid kastoo wax la baxaysa iyo kuwii sakada dadka la baxaya in sanduuqa lagu rido isla markaasna dadkeena dhibaataysan goorta lagu daliyo ayaa arintan aan ugu talagalnay waana wax muhiim ah arintaas. madaxa mashaariicda ee gobolka Nugaal Cabdullaahi Cadde oo isaguna goobtaasi ka hadlay isla markaana hormuud u ahaa kulankan ayaa waxa uu sheegay in uu sanduuqani noqonayo mid meelo badan la dhigo isla markaana dhaqaalaha loogu ururiyo kaasoo wax looga qaban karo dhibaato kasta oo gobolka soo wajahda. dadka dhibaataysan deegaanka meel walba tusaale ahaan waxaa jira dumar fara badan oo haysta ciyaal agoona oo aan fiiga iskuulka iska bixin karin waxaa jira dad xanuunsan oo aan isdaaweyn karin badanaa waxaa dhacday macnaha qof intuu xanuunsaday $50 ama $40 daawadiisu ay tahay laga baqaylay ama la siin waayey tii alla ay u timi qofku iska geeriyooday marka dhib fara badan baa dadkii haysta waxaan rajeynayaa bal inay nagala qayb qaataan sanduuqan aad arkaysaan haddeertan waxaa ku qoran waa ka hortagga abaaraha lagu soo noqnoqonaya horumarinta gobolka Nugaal iyo aqoonta dadka tabaaraysan intuba isugu jiraan hadduu alla idmo guddigii hore ee abaaraha unbaa gacanta ku haynay oo lagu biiriyey guddi kale hadduu ilaahay idmo ka socda xukuumadda iyo gobolka. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Mudane Cabdullaahi Jaamac Al-Kajiir ayaa isaguna goobtaasi ka hadlay waxaana uu sheegay in uu kulankani muhiimad ballaaran leeyahay isla markaana uu noqonayo qofka ugu horeeya oo isagu deeqda ugu horeeya ku rida sanduuqaasi. kala fiican iyo waxaan filayaa fikir fiican in garoowe oo caasimadii dowladda Puntland in ay ka bilaabato hawl noocan oo kale waxaan rajaynayaa markaa inay ku dayasho fiican leedahay oo markaa gobollada kalena ay ku dadaalaan sidii ay noocan oo kale ina u samayn lahaayeen ururada lagu leeyahay waxbay keenaan deeqa iyo waxa kale waa yabo dalal qaniya iyo dad qaniya wax ka keenaan kuwa hadda xamar wax geynaya wax ka keenaan ama dad hantiiliyaala ama dad dhaqaale inta badan dawladdu ma bixiyaan hay'adahaas oo dhan waxay bixiyaan ama hay'adaha khayriga la yiraahdo ama NGO-yada waxay wax ka keenaan waa dad wax laga soo kulankan lagu soo bandhigayay in gobolka Nugaal loo sameeyay sanduuq dhaqaale loogu ururiyo kaasoo wax looga qabto wax kasta oo dhib ah oo gobolka soo wajahda ayaa waxa ay dadkii goobtaasi isugu yimid markiiba ay bilaabeen in ay dhaqaale ku ururiyaan sanduuqaasi.